بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابتي قالوا سؤال هذا ميل والبدون كده على جوكتان وولاش صديق قسيما إيه مركلة ما شاء الله ما أنت محا إنه وضع قراع ما إنه وضع قراع ما شاء الله. أصحابتي قالوا إن أودايا ده قفك إسعاتين ربا يقفك عافي ما ترى ولا بدبا ما شاء الله. إن مركا إن هذا قراع دواي إن شاء الله إن وضد بايق صعد صديق إن يعني دايد نوسو قل صديقه قبله ما شاء الله غير الله سيو إن محل هاي وحرجينا إني كفاية صندونان إن هدي إلهي كدقة ما شاء الله. إن قراع دي واي قدر يوم كحجين دونا عشرين وانسوق قرين دونا اسمودي أما عبتانا وانسوق قرين دونا إن شاء الله هدي إلهي كدقة أو إسعاتين تا أما عافمات كحقيس إن شاء الله. إن مركه محا أنت نهور يالا ما شاء الله ما أنت وحا نهور يالا وأكون يو إن أقرأ أما محل ده هاي بامية في صومالي بامية اللي ما كان عني ما شاء الله. إن وكنت ما شاء الله أدي أدبو في عنتهاي وما عرفتي بروتين واي إن حق ساعتين أدبو في عنت جاجنا كم خوانيسو هذا حبت صبح أنت تكسر يسته ما عرفت تكو قراعته. إن بامية هنا ما شاء الله السجنة حق عافمات آدي أد وجا ما عرفت قيب قاتا. إن حق ساعتين تنا آدي أد وجا قيب قاتا. إن هذا حق عافمات كهر مرة ما شاء الله. إن ومحل هاي ضدك ما عرفت إن كل جويس كمالها كل جويس يدا لده وما عرفت إن وحي كل بلامان إلهي أمركيس وحواي إلهي وقلت لك جلواي وقيان يرو كجرواي مركا إن قيان كاس آد بوجا قيب قاتا إن باميهان ما شاء الله قفك جلبها دو حنونايو ميلها كل جويسية ده دبر حنونك ماركت ما شاء الله آد بوجا قيب قاتا. إن حق وضنها ما شاء الله أصلا الشقة دي آد بوجا قيب قاتا. إن محايا قدها يا إن إيشك إن علاشة بحير تقشة أما باللي فات كوحلته أصلاً آد بمارته وقف قاتا إنه جره ومارته وكجويو ما شاء الله. إن إيوه مارته سكرت ضدك قوا إن ما شاء الله أيجنا إن آد بمارته وقف قاتا سكرته إنه وصحة وماشي لو تلقى ومارته وجيو. dad badan oo xagga sokorta aad uga cabeeyaan arkay oo maaragtay ma sha Allah sokortooda kaal iska qarnaba ilaahay maaragtay uga kaxeeyay caafimaadka ilaahay baa haya laakiin ma sha Allah aad buu asagana uga qayb qaataa. dhiigkarka sidoo kale to ma sha Allah maadaama uu wadni la shaqeynayo dhiigii iyo wixii dhan maaragtay ay isku xiran yihiin oo isla maaragtay ay isla isku meel yani wadnihii uu dhiigii ka shaqeynayo habayo asagana xagga dhiiga aad buu maaragtay ma sha Allah dhiigkarka uga qayb qaata marka iyo waxyaalo badan oo hadda aad ma sha Allah xagga musqusha dadka caloosha adag ayagana aad xagga digestigooda mindhiciraha maaragtay ma sha Allah aad buu maaragtay uga soo riixaa waxa wasaq ku jirto mana dhibayso musqusha dadka ما شاء الله آد عافيمات وتربى ذنبولي هاي حتى ماشان كونسو وذا كوبي كرو أنت مهم كأيها حتى كسر قادنا يا إنك استو وما عرفت حبت كسر دم بس أي كسي فايدة بدنت هاي ما شاء الله بالعادة كجيرك آد بوفي عيا جيت كان إن ماله إسكيا لا دتك أنت بدن ما استعماله لكن هم أهانتي هذي أوجان هاي عافيمات كجيرة يا ما شاء الله قرقود لقمو وين هاي آد باستعمال هاي marka walaalahay qaaliga aniga hadartaan dietkiina maadaama uu qayb ka yahay uu ka qayb qaadanayo xagga caafimaadkana aad maaragtay uga qayb qaadanayo ayaan jeclaaday inaan koow asaga maanta aan quraacaan nooga dhigo sida runtaana aniga quraacdayda waaye xabad ukuna oo maaragtay ama aan dubay ama aan kariyay iyo maaragtay afar xabo oo okra ama afar xabo oo baamiya marka waxaan sameeyaa isha noocyo badan oo samaysan kartaa daarta suugada waa ku darsan kartaa hadaa rabto maxaa dhahay waxaad ku samaysan kartaa isha waa shiido kartaa oo wax yar cabitaan inta ku qasta ku samaysan kartaa
haddaad waxaad sameyn kartaa biyo cad ayaad waxaad sameynaysaa 2 minutes ugu badnaan 3 minutes ka badan inaad karisid lama rabo sababtoo ah fitamiinada iyo waxyaalaha ku jira ayaa ka dhimanaya marka aniga waxaan sameeyaa subaxii haddeertaan waan idinla qaybsanaa insha allah sidaan u sameeyo 4 xabo ka mid ah ayaan waxaan sameynayaa biyo cad ayaan digsiga dabka saaraya marka biyo cad digsiga dabka saaro oo wax kale aan lahayn oo cusbo lagu darin waxba lagu darin ayaan waxaan sameynayaa biyahaas markay karaan ayaan 4 xabo oo okra ama isheeg baamiye oon dhaqay oon si fiican isaga nadiifiyey ayaan biyo ku dhex ridayaa insha allah marka ku dhex rido 2 minutes to 3 minutes markay biyaha ay ku karo ayaan kasoo bixinayaa insha allah markaan kasoo bixiyo kadibna waan isla arki doonaa suu ku soo baxo xabad ukunana waan soo sameynaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo waan isla soconaynaa qaybta dambe stay tuned insha allah bismillahi raxmaan raxiim marka asxaabteeda qaaliga waa kana quraacdii anigoo soo sameeyey maasha allah waa ka 4 xabo oo okragii ama maxaa idin dhahayaan baamiyihii waa soo kariyay biyo cad bas aan kusoo kariyay 2 minutes bas aan soo kariyay aniga xabad ukuna iyo basal yar oo maaragtay aan ku qorqorxinaysto wayaan ku qorqorxsanayo maasha allah ayaan soo sameeyey iyo xabad roodhida madow ah koobkaaga cad ee biyaha ah maasha allah intaas haddaad subaxii ku quraacato waxaan ku dhahay gaajo kuma qabanayso ilaa xilliga qadada aad ka gaarto maaragtay maasha allah waxaan ku dhahay caafimaadkaagana maasha allah aad iyo aad iyo aad iyo aad baad maaragtay laftarkaaga wax iskaga dareemaysaa oo waxaan ku dhahay jirkaaga inaad wax fitamiin aad cuntay ayaad ka dareemaysaa sida runta ah maasha allah oo aniga aan ku arkay waaye marka qadadiina insha allah waa noogu soo xijin doonaa iyo sidoo kale cashadii iyo ismuudiyo haddii ilaahay ka dhigo biyaha cad meesha cabitaan ka cabi lahayd biyaha cad maaragtay maasha allah haddaysa smoothie ahayn oo adiga markaasayto aad ugu talagashay inaad maaragtay oo sokortii wixii aad ka dhaaftay sokorta sideedaba cudur waaye marka sokorta in laska dhaafo haddii aan laga maarmayno wax yar maaragtay laga cuno ayaan maaragtay aan advice ku bixin lahaa maasha allah marka asxaabteena qaaliga waa tana quraacdeeni maasha allah qaybtii koowaad ee iscaateynta waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan oo wixii jawaabana maaragtay maasha allah aad hoos iigu soo qori doontaan haddii ilaahay ka dhigo asxaabteeda qaaliga marka waxaan idinkaga sii tegayaa intaanu ka kulmi doonaa canjaladana canjalada xigta sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu